بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسو دوادا عشركي شان يلباتناد برنامجكي قوركا إيا أحكامتيسا arrimaha qoyska farxadda qoyska guusha qoyska aan uga hadlaynay waxaan casharkeennii hore ku soo qaadanay ama aan kaga soo hadalnay meherka gabadha la siinayo markii la guursado insha allahu tacaala waxaan maantay kusii socon doonaa isla meherkii masalada casharkeenna aan ka bilaabaynaa waxay tahay meherka maqasaba in wax hantiya oo xoolo muuqda laga dhigo mase waa laga dhigi karaa waxyaalo kale oo dheef ah oo manfaco oo kale masalan qur-aanka qofkan la baro shaqo loo qabto adeeg loo qabto yacni waxyaalahaas meherka waa laga dhigi karaa wax hanti ah oo xoolo muuqdo ah sidoo kalena waa laga dhigi karaa wax manfaco ah ama faa'iido iyo dheef ah tusaale qur-aanka oo la baro qofkan ama shaqo qofkan loo qabto shaqadaas ii qabo bil waqtiga waxaas ii qabo dhar ii tol guri ii dhis yacni guriga laftigiisa kama wadno shaqada la qabanayan ka hadlayna guriga hadday tahay gurigu waa hanti weeye laakiin shaqada qofkaas uu qabanayo ayaa maaragtay noqon karta meher marka waxa weeye kullu camalin yusta'jaru calayhi camal kasta oo la isu kiraysto oo qof loo soo kiraystaba meher waa noqon karaa qur-aankii baristiisiyaa ku jirta haddii marka qofka qur-aan oo kale maalan gabadhii meher looga dhigayo qur-aan in la baro haddii meher looga dhigayo shuruuday leedahay shuruuddaas waxaa ka mid ah waa in qur-aanka la yaqaanaa oo maalan qur-aanka oo dhan ama subac qur-aana ama suurad ama juz ama xisib waa in la yaqaanaa qur-aankaas intuu yahay haddii kale waa in la yaqaanaa waqtiyo hal bil qur-aan inaa ibaraysid hal wiig ama hal toddobaad inaa qur-aan ibaraysid marka qur-aankii in la yaqaano ama waqti la yaqaano ay tahay labadaas mida la raba taas waa xagga meherkii in laga dhigi karo manfaco oo waxaa daliil u ah xadiidkii saxiixaha ee bukhaari iyo muslimba ay warinayaan iyo kutubta kale o axaadiistuba ninkii asxaabiga aha markii uu gabadhii yiri rasuulka ilaahay o haddii aada gabadhan adigu rabin aniga ii mehri ee nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam meher raadi kabacdina uu wax kale soo waayay ee uu nabigu yiri zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kuugu guuriyey qur-aanka aad taqaanid ayaan kuugu guuriyey laakiin muhim waxaa ah halkaas haddii gabadhii qur-aankii ay ninka ku heshiyeen inuu baro asagoon barin hadday kala tagaan maxaa meher u noqonaya maxaa la siinaya hadhow waa laba maada mid mar asaga ayaa baritaankan ay ahayd inuu baro oo asaga uu macalin ka noqdo marna in qur-aankan uu baro hadduu rababa yacni macalin ha usoo kiriya ha ka bixiyo qarashka bariste labadaas mid haddii asaga inuu baro ay tahay mar hadday kala tagaan wax damba ma uu bari karo waxaa loo guurayaa waxa la yidhaha meherulmathal gabadhaas gabdhaha la midka meherka la siiyo waana masale casharka kusoo socotoon ku faahfaahi doono laakiin haddii in qur-aankan gabadha uu baro yacni qarashkiisa uu ka bixiyo macalin uu qabtay ahayd xataa markay kala tagaan waa uu ka bixi karaa qarashkaas masalada ku xigtoon casharkeena uga hadlayna waxa weeye waa masale aada u muhiimaho maanta jirta wiilkiiyo gabadhii waxaa laga yaabaa inay meher ku heshiiyaan meher markii ay ku heshiiyeen tusaale meherkii waaba yarye $100 ay ku heshiiyeen laakiin gabadhii waxay leedahay niyo waxaan rabaa dadka in ay maaragta aan meel iska saaro oo yacni meher badan in laygu mehriya ay arkaan saaxiibada iyo waxaas waxaan rabaa inaa meher badan ii sheegtid oo markii guur ku dhacayo kor aan dadka meher badan u sheegno 5,000 inaan u sheegno oo dollar tusaale laakiin aniga adiga meherkan ku heshiina uu yahay $100 markii xafladii la iskugu yimid oo gabadhii la mehrinayay waxaa lagu mehriyey 5,000 a meher looga dhigay laakiin hoos waxaa looga soo heshiiyey 1,000 yaa meher ah waxaa meher ah kan guurka ku dhacay ayaa meher ah heshiiska waxba ma tarayo guurka kii lagu riday ayaa meher ahoo dadka hortooda lagula nikaaxiyey gabadha taas waxaa cagsigeed ah ama kasoo horjeeda gabadhii aabaheed waa laga soo doonay waa uu u mehriyey ninkii
wuxuu ugu meheriyey tusaale meher yaruu ninkan sheega wuxuu yidhi anigu $100 aan bixi karaa, aabaheeda $100 ugu meheriyey $100 ugu meheriyey. laakiin waxaa la erinay hadda gabadhaadii waa ku meherinay, waa lagu xalaaleeyey. xafladda markii la iskugu tago waxaan rabnaa in aan dadka u sheegno meher weyn oo gabadha guurkii lagu celsho, oo aan markaas haddana guurka la ridno. laakiin kaas kale waa mid dadka aan ku qancinayna guurkii waa noo dhacay, xafladdana waxaan sheegaynaa $10,000 aan sheegayna, markaasaan ka dhigayna inay isguursanaysaan. aabaheedna wuxuu ku soo meheriyey $100. xafladdiyaa la yimid, guurkiyaa lagu celshay, dadku waa u guur cusub. gabadhiina waxaa la yidhi $10,000 lagu meheriyey, heblaayo meher qaali maasha allah ka dhacday. kee mehera marka? ma kan dadka weynaha laga hor sheego xafladda horteeda lagu sameeyey, mase kii oo aabaheed kusoo meheriyey? kii aabaheed kusoo meheriyaa meher. sababtoo ah mar kastaba guurka saxda ah ee dhacay ayaa meherku raacaya. guurkiina waa soo dhaca, waxaan kaloo dhan oo dadka lagu qancinayo waxba ma soo kordhinayo. kaas oo lagu soo meheriyey gabadha aabaheed ku meheriyey a meher. mar kastaba heshiisyadan kale waxba ma tarayaan. labadaas masalaba waa ka tagin. masalada ku xigta waxa weeye meherku degdegna waa noqon karaa, dibdhigna waa noqon karaa. dadejin oo ay ku heshiyaan gabadha meherkeeda inuu ninku hore u siiyo waa noqon karaa. in oo ay dib dhigtaanna waa noqon karaa. labadaba xaq ayay u leedahay. laakiin gabadha waxaa fiicana leeraa ninku inuusan u galmoono u tegin asagoon meherkeedii wax uun aan ka siin. masalada ku xigtaan ku hadlayna waxa weeye meherku muxuu ku sugnaadaa? meherkoo dhan muxuu ku sugnaadaa oo dhicitaan ka celiya? meherku wuxuu ku sugnaadaa oo uusan dhici karin laba maado. midda koowaad waxa weye ninkii inuu gabadhii u xaasaysto, u galmoodo, la seexdo oo isku tagaan. markaas hadday isku tagaan meherkeedii oo dhammaystiran ay leedahay. waxaa kaloo meherkii oo dhammaystiran ay gabadha ku yeelataa haddii ninkii uu dhinto ama ayada ay dhimato, yaysaba isu galmoona. meheraa loo magacaabay, guurkii waa la riday, labadooda mid ka mid aha dhintay, meherkii oo dhammaystirana markaasna la dhiibaya. hadday gabadhii tahay waxaa dhimatay, meherkii ninku wuxuu ku darayaa xoolaha gabadha laga dhaxlayo. xoolaha gabadha laga dhaxlayo ayuu meherku ku jira. marka meherka oo dhammaystiran ayaa markaasna la dhiibaya. marna meherka barkiis ayaa sugnaada oo waxa weeye gabadhii haddii meher loo magacaabay, gabadhii meheraa loo magacaabay oo lagu guuriyey, laakiin intaysan isreeraysan oo ninkii gabadhii istaaban oo isu galmoon ayaaba guurkii tii alla u timiduu burbura. gabadhaas waxay leedahay meherkeedii barkeed bar ayaa dhacay. ayadda qur-aanka waa tii laheed wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum. gabdhihii haddii aa furtaan inta aadna taaban, min qabli an tamasuuhunna, intaadna taabanoo aadnan u galmoon, aadna u magacowdeen meher, fa nisfu maa faradtum, waxa aad u magacowdeen barkood ayay leeyihin. $1,000 haddii lagu heshiiyey, 500 ayay leeyihiin gabadha ay leedahay haddii ay kala tagaan ninkii iyadoo aysa istaaban. taas bedelkeed gabadhii haddii meherba aan loo magacaabin, wax mehera looma magacaabin, meherkiina ayagoo ninkii istaabanna waa kala tageen. yacni guurkii waa la riday asoon meher la sheegin. sida fiican meherka in la sheega wey, waa soo marnay. laakiin guurku waa ansaxaya iyadoon meher la sheegin xataa haddii la isguursado. marka iyadoon la sheegin meherba ayaa la isku guuriyey labadan qof. hadhow ayagoon istaaban ayaa guurkii burburay. maxay gabadhaasi leedahay? gabadhaasi meher ma leh, maadaama aan loo magacaabin waxba, aanana aysa istaaban. laakiin waxay leedahay waxa la yidhaha mutco oo waxa weeye gabadhii la siinayo oo yacni cabsidii looga bi'inayo. cabsidii iyo guurkeedii ka burburay iyo firaaqii iyo kala taggii ku dhacay
wax oo ay yacni qalbigeeda lagu kabayo ayaa mutco leedahay. oo aayadda qur-aanka ilaahay aayadda hadda aan ka sheekaynaynay uu macnaha aayadda qur-aanka uu ku leeyahay ilaahay wamaticuuhun gabdhaha u raaxeeyo mutco siiya wax cabsidii iyo kala taggii iyo cidladii qalbigeeda ka kaba siiya. mutcadaasna waa qof iyo tabartiisa. cala almuusici qadaruh wa cala almuqtiri qadaruh, yacni qofkii oo hodanka ahaana intuu awoodu dhiibaya, kii oo maaragtay faqiirka ahaana intuu awoodu dhiibaya. waana waajib markaas. mutcada sidoo kale waxaa yeesha gabadhii la guursaday oo loo galmooday meherkana laheyd, ayadana laftigeeda haddii la kala tago in loogu daro ayaa waajiba. marka ilaahay laba aayadoodu midna ku yidhi xaqan cala almuxsiniin, waxay xaq ku tahay dadka wanaagga samaynaya. aayad kalena xaqan cala almuttaqiin, dadka alla ka baqaya ayay xaq ku tahay. yacni kuwaasaa dhiiba, kuwa kale waxaa dhici karta inay dafiraan. rag waxaaba jiraba meherkii weynaaba gabadha ka dafiraya. markaas muxsiniin iyo muttaqiin inaysa ahayn ayay tusinaysaa. haddaba waxaan hadda ka hadlaynaa waxaa la idhaha mehrulmathal ama mehrulmithl. maxay tahay mehrulmithliga? gabdhaha la midka ah meherkoodoo kalea la siinaya mararka qaarkood. waa gabdhaha ayada la midka ah meherkoodoo kale ayay marar yeelanaysaa. muxuu yihi meherkaas? meherkaas waxa weeye gabadhii maalanba waa la guursaday. haddii gabadhii la guursaday markii la guursanayo wax mehera lama sheegin, ama meherkii waxyaala aan meher noqon karin oo sax ahayn, aduu wax oon shuruuddii meherka laga waayey ayaa loo magacaabay. ama meherkii waa la isku khilaafaba, intuu ahaayaa la isku khilaafay oo intaasu ahaayo intaasu ahaa, ama in meherba la magacaabo la isku khilaafay. waxyaalahaasoo dhan xagga inta la iska dhigo ayaa waxaa loo guurayaa gabdhaha la midka ah meherka la siiyo kale. gabdhaha la midka marka waxaa laga bilaabayaa ayada walaalaheed ku hooyii aabbada ahaa wixii lagu guuriyey, ama haddaysa jirin kuwaasi kuwii ku aabbaha ahaa, haddii kuwaasi aysa jirin gabdhihii ay eedada u ahayd, haddii aan la helayn eedooyinkeed wixii lagu guuriyey oo mehera ku soco, sidaasa lagu soconaya. haddaan eedooyin jirin, gabdhihii kaleo xagga hooyadeed ka socda oo hooyadeed wixii lagu soo guuriyey, ayeydeed, habaryaraheed, gabdhihii oo maaragta ay habaryarta ayada u ahayd, halkaasaa la aadaya. haddii waxaasoo dhan la waayo, magaaladaas ay ka soo jeeda dumarka jooga waxa lagu guuriya sida badankooda ah. weliba gabar kasta waxaa laga fiirinayaa gabdhaha ayada la midka ah. waxyaalihii markaas gabdhaha lagu kala xusho waa la fiirinaya oo da-deeda siday tahay, gabdhaha ku da-da, kuwa ku caqliga ah, kuwa ku quruxda ah, kuwa ku hodantinimadka reer hoodana ka soo jeeda, dhowrsanaantii, diinkii, alla kacabsigii, aqoontii, waxaasoo dhan waxyaalaha gabadha lagu kala hormariyo bikaarada iyo garoobka sidii ay hadba tahay waa la fiirinaya. yacni gabadhaas gabdhaha nooceeda ah waxa lagu guuriyo ayaa markaas meherulmithli looga dhigayaa oo la siinaya. haddii yacni meherkii doodi ay ka timaado oo yacni la isku fahmi waayo la fasaqo meherkii. waxaana u daliila xadiidka aan soo marayna cabdullahi bnu mascuud, gabadhii ninkeedu ka dhintay asagoon u galmoon meherna aan u magacaabin, waatii uu yidhi gabdhaha ayada la midka ah meherkoodoo kale ayay leedahay oo aan looga yaraynayn loogana badinayn. marka sababahaas ayaa meherulmathalka keenaya. waxaan ka hadlaynaa hadda maanta xukmu lcafwi cala asadaaq. meherka ma cafi karaa? gabadhii meherkeeda ma cafi kartaa? meherkeeda gabadha way cafi kartaa. meherka ayada iska leh wayna cafi kartaa. kulligiisa cafi kartaa. haddii oo kala bar uu ahaayo cafi kartaa, way cafi kartaa ayada iska leh. masaladaas in badanaa nala weydiye, waxaan ugu adkaynaya. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum. gabdhihii haddii aad kala tagtaan inta oo aad fasaxdaan inta aadnan u galmoonoo taaban, aadna meher u soo magacowdeen, meherka aa u magacowdeen barkiis ayay leedahay. marba haddaan la istaaban, waa soo marnay.
ilaahay muxuu daba dhigay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax. waa haddii gabdhuhu aysan iska cafin. maalan ba gabadhan ninkii $1 ku guursaday, markuu $1 ku guursaday asagoon taabanba ayaa calaf yimidoo meherkii guurkii waa burburayba. ayagoo istaabanba ninkan gabadhan ayaa guurkii burburay. haddii guurkii uu sidaas ku burburo gabadhii $1,000 waxay leedahay $500 ay leedahay. 500 ayadaa iska leh. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay 500 ayadaa iska leh haddii aysan gabdhuhu cafinoo aysan dhihin warniyahow maadaaba meher uu igu dhacay oo aada i guursatay adigoon waxba faa'idin oo aanba hadda aan ila jiifsanna guurkeennii saas uu ku burburay waa ku cafiyey 500na kaama rabee orod iska tag ay tiri. ilaa an yacfuuna gabdhuhu hadday cafiyeen waa sidaas. aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax, ama uu cafiyo kii guurkaba gacanta ku hayay oo zawjkii ah. macnayaasha tafaasiirta qayb ka mid a ninkii cafiyo gabadhii maalan ba $1,000 meherkeeda ahaa wuu u hormariyey, faruhu ka saaray. markuu faraha ka saarayna hadhow guurkaa burburo ayagoon istaaban. ragga qayb waxay leeyahay ii soo celi 5taydii kale. waxa weye waxaa dhici karta gabadhi inay inta isticmaashay wax ku qabsatay hadhow ay yani daynba geli karto. waxaa dhici karta inay iskugu kaa diyaarisa adiga laakiin calafkii uu gurigii burburiyey ka hor. ii soo celiyo nin leeyahy. laakiin ragga qayb ka mid waxay leeyihin waa iska cafinay wixii gacantaada galay kaama soo ceshanayn. aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax. oo markaasna raggu hadday cafiyaanna waa sida fiican. marka marna gabadhii cafiday 5,100 marna ninkii cafiyo yiri 1,000 iska wada qaado. ama xataa hadduusa siin markii ay guurkii uu sidaas u burburo ninkii wuxuu yiri 1,000kaagiiba waa ku wada siinaya maadaama aan kuu magacaabay. waxa weye adaaba hadda naxsane aniga waxba igama dhibayso. marka hadday isu cafiyaan gabadhu ay cafiso qaybteedii ama ninkii uu cafiyo qaybtiisii ugu daro waa ay soo gelaysaa. waxaa la mid noqonaya gabadhii hadday meherkeedii caadiga ahay oo ninkeedii ay isla soo noolaayeen ay iska cafiso ayana xaqay u leedahay oo banaanta. ilaahay marka wuxuu leeyahy weliba wa an tacfuu aqrabu litaqwa. markaas oo sidaasoo kale guurkii idinka burburay adinkoon isreeraysan ee gabadhii meherkii bar ay mudatay inay iscafisaana fiican. ama ay gabadhii cafiso ama ninkii uu u cafiyo ugu daro 5 kala barki kale. taasaa alla kacabsigaba u dhow. walaa tansawu lfadla baynakum. war fadliga dhexdiina yaallana ha halmaaminino inaad iscafisaan. maaragtay in oo wanaagga idin dhex maray aadnan halmaamin. in dad waxaa noqoteen qaraabo ah dadka iskaga sokeeya ha halmaaminin oo kala cadgoosanina. oo waxa weeye in oo hirig qof kastaah qofka kale ka siisto. oo gabadhii inay maalan ba tiraahdo ninkii hadduu rabo asagoon waxba hayn iisoo tuumiya halkan iisoo dhig. ama ninkii gabadhii wixii hore uu u siiyo oo wixii ku baxeen uu yiraah soo celiyo haddaa rabta soo daynsee. yacni wanaaggii idin dhex yaalla ha halmaaminina iscafiya. ilahi wuxuu leey ina allaha bima tacmaluuna basiir. waxa aad samaynaysaan alla wuu ogyahay, waa arkaa, waa la socdaa, waxba kama qarsoona. xogtiina hoosuu hayaa. marka iscafisaan oo alla taqwadiisa doorataan iyo marka kala aargoosataan waxaasoo dhan ilahay waa la socdaa subxana wa tacaala. taas waa iscafiskii. marka gabadha meherkeeda ha yaraado ha badnaado ha isreeraystan yeysa isreeraysan xoolo ayado ay leedahay weye way cafi kartaa. laakiin waxaa jirta masalada halkaas fahamka u baahan. horena uga soo hadalna gabadha meherkeeda qof kaloo cafi kara ma jiro. ayadaa iska leh. qofna ma dhihi karo aabbuhu ma dhihi karo gabadhan waa cafiye meherkeeda. midda kale ninka ha ogaada gabadha meherkii uu ku guursaday xoolo ay leedahay weeye. haddii uu sii waayo ilaahay baa maalinka qiyaamo ka qaadaya. rag badana gabadha markay furaan ay waxay yidhaahdaan waxba mehera iguma lihid waxba ku siin mahayo. taas ma banaana. waxaan ka hadlaynaa hadda marka masale muhiima. masaladaasi waxa weeye alkhuluc cala sadaaqa. yacni gabadhii oo ninkeedii iska furtay oo ka dalbatay inuu furo meherkeediina uu ku shardiyey oo uu yiri markay tiri ifur. yacni wax keenaba furiinka ifur marka ay tiri wuxuu yiri
waa ku furayaa haddii aad meherkaaga ii cafisid. markaas ayay tiri meherkaygii waan kuu cafiyey ifur. markaasuu yidhi waa ku furay. macnaha furiinkii wuxuu ku dhacay shardigii meherka. haddii sidaas furiinku ku dhaco gabadhaasi meher male, gabadhaasi meher male, meherkeedii madaxeeday ku qaadatay. yacni ninkii adugu oon si ay noqotaba ay la noolaa weyday ayay furiin ka dalbatay. isaguna wuxuu ku shardiyey furiinkii in oo meherkeeda ay ka tagto. sidaasaana furiinka ku dhaca. hadhow ma dhihi karto. gabdho badanaa markay sidaas yidhaahdaan hadhow markii ay ninka kala tagaan yidhaahda isii meherkaygii ma dhihi karaan. waxa markaas kabacdi ay dalbadaan waa xoolo booliya oo baad ah oo dhaca. ma dhihi karaan. meeshaas masale kale oo muhima ku jirta. masalada ku jirta waxa weye ninka laftigiisu gabadha dalqadihii wuu ka gatay. haddii hal dalqa uu ku furay hadhow ma dhihi karo waa ku soo ceshaday rajactu ma dhihi karto. masaladaas ku baraaruga dadow. rag badana waxaa laga yaabaa gabadha inta madaxeedii ka gatay oo ku furay meherkeedii ama xoolo kale uu ku furay inuu haddana hadhow yidhah waa ku soo ceshaday. rajactu inuu yidhah. rajactu kali horta wax kuma ceshana waa inaad tirahda gabadhii meherka guurkaygan usoo ceshaday. rajactu anaa laabtay wey bis. marka guurkaygan usoo ceshaday rajactu zawjatii ilaa cismatii. waa inaad yacni sheegtaa waxa aad soo ceshatay iyo meesha usoo ceshatay. marka gabadha haddaad ka gadatid dalqadaheedii waa soo ceshaday dambe ma jirto. waa soo ceshaday dambe ma jirto. haddii dalqadihii wax iskugu kiin harsanaayeen ee gabadhaas iyo adiga aad isfahantaan waxaa idiin bannaan guur cusub iyo meher cusub hadda inaad gashaan. laakiin waa iska soo ceshaday ma jirto. taas ku baraaruga. gabadhu meherkeeda hadday ninka madax fur u siido oo ay fur ku tiraahda meherkii meher dambe male. wixii xoolahay dib uga dalbato ku qasabta ninkana xoolo xaaraanahay noqonaan. ninkuna gabadha hadduu dalqadihii ka gatay oo markii uu furaya si kale u furi waaya ilaa inuu xoolo ka qaato hadday rabaan xoolahaas meherka ha ahaadeena inuu yidhaahdo waa ku soo ceshaday ma banaana mana ansaxayso waana baatil. marka labadaasba ku baraaruga. ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay masaladas noo cadaynaya walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhuna shay-a ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bih. ilahay wuxuu leeyahy gabdhaha wixii aad siideen oo meherka u siiseen inaad ka qaadataan ma banaano. waxba kama qaadan kartaan haddii aysan labadan qof oo isqaban ninkii xaaskiisu aysan ka baqin inay xuduudda alle oofi waayaan oo yacni xuquuqdoodii isu gudi waayaan. haddii marka dadkiini qaraabadaha sidaas ka baqdaan iyo dadkii madaha yacni awliyada gabadha ahaa oo yacni reerkeeda ahaa haddaad ka baqdaan dhib male markaas in ay gabadhii meherkeeda isku furato oo meherkeeda ninka ay sida ama ay qayb u cafiso oo ay madaxeeda ku furato ama xoolo kale ay sida. labadooduba ninkiiyo naagtuba kuma dambaabayaan oo isaguna xoolahaas hadduu qaato kuma dambaabayo ayadana kuma ay dambaabayso inay bixiso. taas marka waa bannaan tahay ilaahay subxaana wa tacaala leh. sidoo kale waxaa u daliila xadiidkii saxiixa ahaa ee gabadhii saxaabiyadda ninkeedii ay tiri rasuulka ilaahay ninkaan lama noolaa karo ciladihii markay sheegta ay tiri nin diinta ku fiican weeye oo maaragtay wax ceeba oo an ka sheegay ma jirto laakiin xagga quruxdiisa ayay ka hadashay. mar dambana ninkaas ma kulmayno inuu furan rabaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma u celinaysaa beertii uu meherka kuu siiyey. beertiisi ma u celinaysaa. beer weyne ahayd ilaa ninkii isagoo xaaskiisii ka burburay gurigiisa isagu raba iyo in xoola la-aan la isku daro suurtagal maahan. markaasay tiri rasuulka ilaahay waa u celinaya. marka awalu khulcin fi lislaam la waa khulucii koobaad ee islaamka dhacay masaladaas. madax furashadii koobaad oo gabari madaxeeda ay ka gadatay ninkeedii weye. marka calaa kulli xaal waxa muhimka waxa weeye waa banaanta ayadana gabadhu haddii ay duruufi keento inay oo ninkan ay la noolaa weydo sababa ayadoo ay og tahay waxay rabaan ha noqdaane inay madaxeeda ka gadato waa ay bannaan tahay masaladaasi. marka laakiin ayadiina hadhow meherka isii ma dhihi karto dambe asagiina waa ku soo ceshaday iskama dhihi karo. intaasa casharkeena ku koobayna wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.